بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم maanta waxaan u sii soconaa aan soo booqanay maama Tarabbi oo gurigan hadda u jeedaan oo hortiin idinkaga muuqdo degan waxaa lacag oo $12 noo soo wakiishay oo u soo dhiibay wuxuuna na dhahay maamadaas hal iga gaarsiiyo sadaqan yaraan ma gasho marka insha Allah maamadan u sii gudbeynaa maamadan waa maama Tarabbi waa maamo weelaay ah oo wax ilmo aysan dhalin oo meeshaan iskaga dhibaataysan oo gurigana u jeedaan degan marka insha Allah taala idan aan sii gudagaleynaa xaaladeedii iyo meesha wax marayaan aan sii wareysanayna insha Allah marka umada muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan codeer aan ugu baaqayaa inay maamadan ay soo garab istaagaan waa maamo weelaay wax ilmo aysan dhalin oo guriga iskaga nool cid u maqan aysan jirin gurigeeda iskaga cibaadeysato ilaahay iskaga barido marka wax maanta dib ay saaratan ma haysato wixii meelaha ay dadka ay ka soo qaadato dariska ay u keenaan mooyaane wax kale maanta oo raashin ay haysto ma jirto marka insha Allah guriga hor u sii gudagaleen bismillaahir rahmaanir rahiim sidaan hore idinku sheegay waxaan maanta aan soo booqanay maama Xabiibo Tarabbi Dabay oo ah maamo weelaay ah oo ku nool meeshaan gurigana u jeedaan iskaga nool maanta waxa awlaad ma haysato ilaahayna uma saqirin in awlaad ay dhasho marka maamadan waa maamo iska weelaay ah maanta cid u maqan ma jirto cidaan ilaahay ahayn oo maanta u maqan ma jirto ilaaha u maqan wax waa gurigana iskaga joogtaayo inta iskaga cibaadeystayo ilaahay iskaga barida marka maanta waxaan soo gaarsiinay lacag $12 ah oo noo soo dhiibay walaal muxsin ah marka lacagtan $12 noo soo gaarsiiyay wuxuuna noogu dhahay maamadaas hal iga gaarsiiyo lacagta sida u jeedid lacagtii waatana $12 ahayd maamadan insha Allah hadaan ku wareejinaynaa sida noogu soo dhiibtaan anagan ma sha Allah maamadii maanta noogu wareejinaynaa marka dhamaan umada muxsiniinta ah meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu baaqayaa maamadan garab ay u baahan tahay wallahi maanta guriga ay jiifto roob haduu imaado wax waay biyihii way soo tifqayaan biyihii gudaha ay soo galayaan marka mar walba wax waay carro inta ku reeb inta carro ku reeb biyi roob haday umaadana wax waay carro ma celiso carrada hadii oo gacmo lagu riixay ma celinayso marka dhamaan umada muxsiniinta ah qaasatan umada Soomaaliyeed oo muxsiniinta dal iyo dibad meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu baaqayaa inay maamadan ay soo garab istaagaan guriga u jeedaan ay jiifto gurigan wax waay maanta guri hadda la jeefan kara ma aha runtii laga hadlo waa iidan dan duruuf u geysata maanta tabar ay guri ay ku dhisato ay ku hagaajisato ma hayso waa dareemi kartaan maamo waayeel ah haddana weelaay ah marka hadda waa tabar uma hayso marka umada muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu baaqayaa maanta waxay u baahan tahay lambar 1 horta cunto ay u baahan tahay guri waxa ka horeey raashin ka horeey raashin maanta ay karsato ma haysato marka wax raashin kale bariis ahaato bur ahaato sokor ahaato saliid ahaato wax ay haysato malahan marka awalan raashin ay u baahan tahay umada Soomaaliyeed muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu baaqayaa inay maamadan ay soo garab istaagaan anaga insha Allah mar walba waxaan diyaar u nahay inaan lug hadii ay lug ay naqan lahayd hadii xoog ay naqan lahayd wax walba anaga diyaar u nahay inaan soo gaarsiino sidii wixii aad noogu soo dhiibtaan inaan dadka masaakiinta ah oo danta yar inaan u soo gaarsiin anaga diyaar u nahay maamadan insha Allah lambar 1 raashin ay u baahan tahay waxyaalaha ay u baahan tahay kamid ah guriga bac uma saarna bacda saaran way jeexan tahay sida u jeedaan bac jeexan oo dhar iyo waxa uu jeexana meesha u saaran marka bac jeexan iyo dhar oo jeexmay oo geesaha lagu soo xirxirana roob ma celiso ma sha Allah walaalkeena horta khayr ilaaha siiyo muraadkiisa ilaaha u saqiro dambigiisa damwaalkiisa ilaaha dhaafo muraad uu leeyahay asagana muraadkiisa ilaaha u saqiro meeshuu joogo wadan qurbo jooga ilaaha ku amaansado gaalada shartooda dhagartooda ilaaha ka qabto marka insha Allah umada muxsiniinta guud ahaan iyagan waxaan leeyahay soo garab istaaga marka insha Allah intaas aan ugu